Soo dhawaada saaxiibayaal, maanta waxaanu qaadanaynaa 15 lines on my family. 15 sadar oo ku saabsan qoyskayga. Haddii aad ku cusub tahay kanaalka Baro Luuqad Cusub, subscribe saar channelka Gambalelka Nafra si ay kuu soo gaadhaan muuqaalada dambe aan soo gudbino. Ku soo dhawaada saaxiibayaal casharkeena maanta. waqtigaaga iyo maalintaada iyo xooggaaga iyo cilmigaaga iyo aqoontaada iyo hantidaada iyo garaadkaaga iyo waxaad awood leedahay oo dhan waxaad ku isticmaashaa waxa ku anfaca. My family is a small family. Qoyskaygu waa qoys kooban. My family is a small family. Qoyskaygu waa qoys yar oo kooban. There are 5 members in my family. Qoyskaygu wuxuu ka kooban yahay 5 xubnood. There are 5 members in my family. Qoyskaygu wuxuu ka kooban yahay 5 xubnood. There are my parents, sister and brother. Waxa weeye waalidkay, walaashay iyo walaalkay. There are my parents, sister and brother. Waxa weeye waalidkay, walaashay iyo walaalkay. My father is the head of the family. Aabahay waa madaxa qoyska. My father is the head of the family. Aabahay waa madaxa qoyska. He works in a private company. Wuxuu ka shaqeeyaa shirkad gaar loo leeyahay. He works in a private company. Wuxuu ka shaqeeyaa shirkad gaar loo leeyahay. Private markaa waa wax khaas ah ama wax si gaar ah loo leeyahay. My mother is a homemaker. Hooyadayna waa guri joog. My mother is a homemaker. Hooyaday waa guri joog. Homemaker waxaa la dhahaa qofka guriga jooga ama guriga ka shaqeeya. My mother helps me with my homework. Hooyaday waxay iga caawisaa shaqo guridayda. My mother helps me with my homework. Hooyaday waxay iga caawisaa shaqo guridayda. I have an elder sister and younger brother. Waxaan leeyahay walaashay iga weyn iyo walaalkay iga yar. I have an elder sister and younger brother. Waxaan leeyahay walaalkay iga yar iyo walaashay iga weyn. My sister is 4 years older than me. Walaashay waxay iga weyn tahay 4 sano. My sister is 4 years older than me. Walaashay waxay iga weyn tahay 4 sano. My sister is good at painting. Walaashay waxay ku fiican tahay rinjiyeynta. My sister is good at painting. Walaashay waxay ku fiican tahay rinjiyeynta. My sister plays with me daily. Walaashay maalin kasta way la ciyaartaa. My sister plays with me daily. Walaashay maalin kasta way la ciyaartaa. We go for picnics on holidays. Dalxiisyaanu aadnaa fasaxyada. We go for picnics on holidays. Waan dalxiis tagnaa xilliyada fasaxa. We eat dinner together every evening. Waan wada cashaynaa fiid kasta. We eat dinner together every evening. Waanu isla cashaynaa fiid kasta. My family is the best family in the world. Qoyskaygu waa qoyska dunida ugu fiican. My family is the best family in the world. Qoyskaygu waa qoyska dunida ugu fiican. I love my family very much. Aad baan u jecelahay qoyskayga. I love my family very much. Aad baan u jecelahay qoyskayga. Intaas way noogu idlaaday casharkeennii maanta saaxiibayaal. Haddaad halkan ila soo gaadhay aad baan kuugu mahadcelinayaa. Fadlan haddii aanad kanaalka subscribe hore u saarin, hadda saar oo nagala qayb qaada safarka aan ku tagayno 1000 saaxiib ama 1000 subscribers. Muuqaalkan like saar si uu u gaadho walaalo badan
una share garee saaxiib aad leedahay wuu anfacayaa. Casharkan oo PDF ah waxaad kala degi karaysaa Telegram channel-keena. Waxaa ku qoran baro luuqad. Haddii aanad rabin inaad raadisana, waxaad si fudud ugaga biiri kartaa linkiga description-ka yaala ama commentiga ugu sarreeya ee muuqaalkan.